kulanti wacan wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno gudoomiyaha jaamacadda United Nations Academy of Somalia waa Cali Maxamed Gedir ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. waxay jaamacaddu sheegtay in waxbarashada sare ee masterka iyo PhD-da lagu baranayo dad badan ayaan iska diiwaan geliyay sida uu noo sheegay, laakiin hadalhayn xoogan ayaa jirtay saacadihii lasoo dhaafay oo la xiriiray in UN-ka uu sheegay gaar ahaan xafiiska Soomaaliya ee ANSOM inaysan aqoonsanayn jaamacaddaas. warkaas iyo waxay uga jawaabayaan ayuu noo sheegayaa. horta social media anagu inaan la cilaaqtanana ma rabno. goobjooga waxaa faafiyey ninka la sheegayahay UN SOM mission ayuu ka shaqeeyaa. anaguna mission ma nihin, waxaan nahay education entity waan nahay. waan ka jawaabaynaa, laakiin challenges iyo ma rabno. anagu waxaan nahay iyo waxaan ka shaqeyno waa wax aan qarsoonayn. marka New York waa lagala socdaa waxaan wax la fabricate gariyay ayaan u arkaa. haddii kale international media organizationska ayaa media houseska ay la hadli lahayn UN saas uma hadlaan. waana run, anagu we are not affiliated with UN SOM. UN SOM is a mission for Somalia or temporary Soma. ANSOM anagu kamid ma nihin. anagu waxaan nahay Department of the United Nations Association. haddii aan ku soo diro website-da gale ka waxaad rabta ka qaado. ifan aan ku siinayaa linkyal. waan fahmay. macallimiinta jaamacadan dadka dhiganaya ilmo maahan. xildhibaanaha ku jira, wasiiraha ku jira, saraakiil booliiska nabadsugidaha ku jira, shaqaale dowladda ku jira, arday caadi dal caadiya waa raadsadeen waana ka qanacsan yihiin. marka anaga hadda wax problem anaga nama haystaan adeen. marka haddii aad clarification samaynayso waxaan kuu soo dirinaa muxuu ahay points aad ka faa'iiday karto. waayahay ra'iisul wasaare, dadku waxay isweydiinayaan Cali Maxamed Gedir jaamacaddan hogaaminaya, magacaan maxaad ku doorateen, maxaase lagu bartaa jaamacadda? horta magaca anagu ma dooranay. United Nations Academy dal kastay ka jirtaa oo raadsado oo Soomaaliya kaliya kama jirto. haddaan ku taataabto United Nations golaha loo dhan yahay ama General Assembly iyo Security Council-ku waxay ka wakiilan yihiin dowladaha adduunka. saas oo ogtahay Soomaa? haye yaa intaas waan garanay. civil society organization, civil society associations ay leeyihiin qaramada midoobay oo ka wakiila ama la shaqeeya civil society organizations dowladaha adduunka ka jira. waan fahnay. waxay hoos tagaan organization la yiraahdo World Federation of the United Nations Associations. haye World Federation of the United Nations Associations ka jira New York. dawaqa uu degan yahay lambarkiisa iyo dadkiisa aad heli karto oo ku soo diri karaa. Soomaaliya marka waxay leedahay United Nations Association of Somalia oo xataa magaaladan Muqdisho ka shaqeeya. jaamacaddu marka adduunka dhan sida ka jirta ama nidaamka adduunka dhan ka jira, jaamacadaha UN magacooda wata waxay hoos tagaan United Nations Associations oo dal kasta. Brazil, Costa Rica, South Africa, Nigeria, all adduunkaas ka jira. Soomaaliya waxaan u maleynayaa Africa waa isaga dambeeyna waa dalkii 18 ama 19 waaye. marka anaga waxba nagama khuseeyaan political office iyo muxuu ahay mission UN ah oo dowladda la shaqeeya siyaasad iyo peace building iyo humanitarian ka shaqeeya. anagu definition-kan waa kaas. haddaad aan kuu soo diro linkayaashana waa ka raadsan kartaa. ma garan. waayahay, soo diritaanka waa noo mar kale. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jaamacadda maxaa lagu bartaa marka? jaamacadda waxa waaye waxaan kuu soo diri karaa iyadana muxuu ahay broshuurkeeda hadda wadisabaad haysataa. jaamacaddu waa post graduate education, master degree iyo PhD bixinaysaa haddii alla idmo. macallimiinteedu 90% ama wax ka badan dibadday ka soo dhigayaan duruusta waa online, either in UN or Canada or Maraykan or Europe. 5% ama 7% waa macallimiin iyaguna international level oo dalka jooga oo ama meelo kale jooga oo iyaguna online ku dhigaya maadooyinka. waayahay inta marka soo gudubno, adigu ma macallimiinta ka mid tahay mise maamulka? haddii aad macallimiinta ku jirto dhankii siyaasadda ma ka weecatay?
maya anigu waxaan ka ahay honorary chancellor aan ka ahay oo abaabulkeeda leeyahay magaceeda ayaan dalka u keenay waxay qaban doonto iyo waxay tari doontana markii koorasyadu hadday beri waxay bilaabanayaan usbuucan ama ciidda markii laga baxay bilaabanayaan casharadu maadooyinka laga dhigo public waayo waad heli kartaa website-ka akademiyadu leedahay marka arrintu sidaas waayahay fikirkan hadda marka in suuqii adinku soo gelin walaac uu bilowdo waxbarashadiina saameyn noocee ku yeelanaysaa wax saameynay ku yeelanaysa ma jirto adiga nin waxaa tahay wariyaha waddankaana waa ka warqabtaa jaamacadaha dalka ka jira naftirkooda waxay ku arkaan xoogaa culaysa marka iyaga naftirkoodu waa noo isticmaali karaan miidiyada laakiin anaga waxay naga bedelayso iyo waxay naga saameynaysa ma jiraan waayahay waxaa jirta jaamacad kale oo soomaaliyuhu ka warhaynin oo sidaan oo kale musallaftay ama markii waxbarashada wax ka badan 18 bilood inta arday sidaan oo kale maxaan ku dhahaa waxbarasho loo siiyey la yiri wax shahaado idiima hayno lamana aqoonsana oo magaceedana la yiraahdo maxaan ku dhahaa African Graduate University Soomaaliya marka sida jaamacadaas oo kale inaad noqonaysaan garanti ma haysaa inaadna noqon midda muqdisho ka furan Soomaaliya airdoorka eediisa ka furan haye taas maano taasi aan ku sheegay horta midaan oo kale United Nations Academy of Costa Rica branch ay laga soo qaaday waay haye United Nations Academy of Costa Rica mataqaan dalka South America haye nimankaasa annagoo kala ahay marka dad Soomaaliyeed la xiriiray branch laga soo qaaday waaye arrintaas New York ama associationka adduunku UN-ku waa ku qabsadeen لأن anaga hadda ma ogolaan karna arday aan Soomaali ahayn inuu wax ka barto marka United Nations Academy of Costa Rica waxa loogu talagalay dadka reer Costa Rica marka waxa la arkay iyaga branch kala Soomaaliya ka furay that is why arrintaas u dhacday ardadii dhiganaysana inta badan anagayna soo abalay gareen waayahay taas intaas oo gudbaynaa intaas kadib su'aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxay tahay maadaama xafiiska UN-ku uu jaamacadiina sida tiri qalqal galiyay ma idin la soo xiriiray ka hor intuusan warku soo bixin adeer nimanka khalkhalka la geliya naftirkooda ma la hubaa inay khalkhal geliyeen midda kale anaga isku shaqada ma nihin ba anagu iyaguna waa political office humanitarian iyo peace building maya lama soo xiriir anaga inaan la xiriirnaa anaga direct New York aan la xiriirnaa iyaga shaqo isku mali warkaan markuu soo baxay kadib hadayna la xiriirana waa yaqaanaa ninka la sheegaya anagu waa naqaanaa lama soo xiriirin wax anaga naga khuseeyana ma jiraan anagu shaqada cidda aan la leenahay iyo cidda aan heshiis kula jirno iyo cidda anaga hadda waa ku sheegayaa saakay anagu capacity-gaanu kuno ahay 6,000 iyo googo abalay garayso all over Somalia including Somaliland Hargeysa iyo Amuud iyo laga soo abalay garay marka 6,000 iyo googo markaan marayno saaka waa berigi New York aan la xiriiray waxaan ku yiri 6,000 iyo googo aan maraynaa idinkuna kunaad ku tala gasheen macallimiinta diyaarisan waa 12 marka waxaan la soo diray CV 100 gaaray inaan qorano another 10 or 20 intii aan u baahana marka inaan accommodate gareyno waa dadka meesha abalay garayo gabagabada warkaaga jaamacadan ma ka qarash duwan tahay jaamacadaha kale ee Soomaaliya la og yahay sida dadka Soomaaliyeed ay lacagaha uga qaadaan jaamacadaha Soomaaliya qaar baa kumayaal qaata annaga waxaan macallimiinta Soomaalida oo 5% ama 10% ugu badnaan noqon kara oo dalka jooga xamar jooga iyo kirada compoundiga iyo korontada iyo internetka iyo biyaha nadaafadda ayaan bixinaa $50 jaamacad lagu dhigto inay UN tahay taas aan ku cadeynayso midaan albaabada isugu dhifto sheegaysana kumayaal 3,000 aan bixiyaan wasiiraha igu yiri 3,000 aan bixi jiray marka UN ma ogola inay kaalmaysay rabtaa adduunka bulshada inay culays saarto ma ogola marka anaga xataa $50 inay bixiyaan bishi waxaan ka ansaxsanay xataa maxuu ahay institutionka hoos tagno tacliin quality oo shahaado recognized ah oo $50 lagu dhigto inayna adduunka jirin waa garan kartaan marka macallimiinta 90% diina la ka bixinayo waxa raqiista keena taas waaye waxa aan cadow ku yeelan karno oo jaamacadahan dadka lacag dhiigmeedka ku haya qaarkood
300 bishi 250 bishi 150 bishi iyo waliba waxyaabo badan oo hadda aan sheegin laakiin hadda wasaaradda waxbarashada tacliinta sare laga rabo inay iskaan garayso maadooyinka iyo curriculumka iyo macallimiinta qualificationkooda iyaga ku hawlan laakiin anaga $50 oo bishi bixinaya ardaygu wuxuuna qaadanayaa master degree koorsooyin macallimiin uu ku qanacsan yahay ay hor fadhiyaan oo online qaarna u joogaan waa u haynaa kadib marka buruufrata waxay shaqadu bilaabataa timaado xaruntana waa tegi kartaa contactyaasheenana waa ku qoran yihiin website-ka akademiyada leedahay. aad buu mahadsan yahay cali maxamed geedire wasaarihii hore ee Soomaaliya oo noo warramay faahfaahin dheeraadana ka bixiyay jaamacadaas muranka badan la geliyay waxbarashadeeda dad badan oo iska diiwaan geliyay ayaa ila soo xiriiray taasina waxay sababtay inaan codkiisa idin maqashiino oo aan weydiino su'aalo khuseeya UN-ka qaybtooda Soomaaliya ee ANSOM iyo sheegitaankooda ku aadan inaysan aqoonsanayn iyo warbaahinta oo warkaa tabisay. nabadgelyo.